السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan meel walba oo caalamka joogtaan oo mar kale iyo barnaamijyadeennii dhiirigelinta iyo wacyigelinta ahaa. Labadii muuqaal ee u dambeeyey waxaanu kaga soo hadalnay dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhalinyarada haysta. Muuqaalkan waxaanu ku soo qaadan doonaa xalka caqabadaha dhalinyarada haysta. Xalka ugu horreeya lamarko waxa weeye naftoo la qiimeeyo. Xalka ugu horreeya waa naftoo la qiimeeyo. Arrimaha aan ku soo sheegnay ee caqabadaha dhammaantood waa wax la sixi karo. waxay u baahan yihiin baraarug iyo tacaali dhaba. Xalka inta la gaarin waxaa muhiim ah qofku inuu baraarugo xaaladda ku sugan yahay uu dareemo oo mataqaan fahmo si uu wax uga qabto. Waxa su'aal hadaba oo isweydiin mudan science ku qiimeeya qofka meeshii ayuu joogaa, qof dib u dhac ayuu sameeyay, qof horusocod ayuu sameeyay. Adigu ila soco markasta. Markaad ila socotid ayaad waxaad dareemi doontaa waxa ka khaldan iyo waxa ku saxmay. horumarkaaga sida ugu fudud ee aad ku qiimeyn karayso waa adigoo isku fiiriya shalay iyo maanta xaalkaagu sida uu yahay dhan kasta oo nolosha. Haddii ay ahaan lahayd xagga cilmi, cibaado, waxbarasho, dhaqaale, waxtar bulsho, xirfad iyo asxaab, yacni shalay cilmigaaga heerka uu ahaa iyo maanta heerka uu marayo isku fiiri. Shalay cibaadadaada siday ahayd iyo maanta siday tahay isku fiiri. Dhaqaalaha shalay siduu ahaa iyo maanta sida uu yahay isku fiiri. Ka faa'iidaysiga waqtigaaga heerka uu ahaa shalay toole iyo maanta sida uu yahay isku fiiri. waxaad cabiraysaa isbeddelkii aad samaysay. Haddii meeshaadii hore taagan tahay ku fikir si aad wax uga beddeli lahayd, iskuna horumarin lahayd. haddii aad horumar samaysayna ku shukri kana sii farabadi. goormuu qof isla socon karaa? Qofka wuxuu isla socon karaa marka waqti siiyo naftiisa. waqtigu nafta la qaato, isku qiimeeyo, wax u qorshaysto oo go'aana gaadho. qodobka labaad ee xalka noqonaya waxa weeye firaaqada badan inaad iska ilaaliso, nafta ka ilaaliso. halka labaad ee lagula tacaalo caqabadaha aan soo sheegnay waa naftoo firaaqada badan laga ilaaliyo. Nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yidhi qofka muslimka wanaaggiisa waxaa ka mid ah inuu isaga tago waxyaabaha malaayacni gadanta ugu jira. jadwalkaaga oo aad shaqooyin muhiima ku buuxsato ayaa kaa yareynaya in waqtigaagu ku lumo wax badan oo aysan dani kugu jirin. qofka gelinka hore waxbarta, gelinka dambana shaqeeya, fiidkiina kutub raacda, 5 salaadoodna jamaacada kula tukada masjidka, sidaas ayuu waqtigiisu ku maaraysan yahay inta badan. waayo subax hore 5 oo biira ilaa 12 saac duhurnimo waxa uu ku jiray cibaado iyo waxbarasho. duhurkii isagoo daalan ayuu xaafadda imanaya oo inuu nasto ama ismatadaaliyo ayaa laga yaabaa. galabkiina shaqadii sugaysay ayuu qabsanayaa. marka uu rawaxana in yar oo indhakaduusiya hurdo gaaban kadib waxa uu galayaa kutubtii. waxaana u badan tahay inuu soo hoydo isagoo daalan isla markaana seexdo. waqti yar iyo hurdo isku diyaarin ka badan ma haysto in uu seexdo ayuu markaas u baahan yahay. qofka caynkaas waqtigiisii sidaas ayuu ku maaraysan yahay. ka waran arday lamida ardayga aan soo sheegnay ee gelinka hore keliya wax barta, waqtiga ka soo hareen aan waxba qaban. waxa uu nugul yahay inuu waqtigaas ka khasaaro fadhi ku dirir, baraha bulshada, ciyaaro, filmaan, haasaawe aan waqti lahayn, meelo fadhiis iyo wax aan macno badan samaynayn. mustaqbalka ayuu waqtigii uga lumayaa inta badan isagoo ku talagelin weliba. labadaas arday waxa kala duway waa uun hal shay, kaas oo ah howlaha u qorshaysan maalin kasta. ardayna jadwalkiisa waa buuxaa, kan kalena waa ka firaaqo oo ka madhan yahay. sidaas daraaddeed waxaa mar kasta nugul qofka aysan shaqo u oolin oo u nugul inuu khadka ka siibto. wuxuuna u badan yahay inuu waqtigiisaas u isticmaalo si adduun iyo aakhiro aan macno badan u samaynayn. firaaqadaasna waxay ka mid tahay waxyaabaha sababa in arday balwad yeesho walow uusan jeclayn inuu waqti khasaariyo. marka ay waxbarashadu ku dhammaato, hubi inaad waqtigaas u samayso camal kale oo ku anfacaya. haddii kale waxaa ina sugaya ajandayaasha aan qorshaynta u baahnayn ee waqtiga u waarsada. sidaas awgeed, haddii aan nidhaahno waqtiga sidee looga faa'iidaystaa, waxaan dhihi karnaa keliya yeelo qorshayaal ku ilaaliya. marka lagu ogaado in aad wax fiican ku mashquulsan tahay, damaca dadka ku mashquulin lahaa xitaa hoos ayuu u dhacayaa oo inay kugu daydaan ayay badan tahay haddaad joogtayso. balse haddii lagu ogaado inaad qorshe lahayn, waxaa lagu dejinayaa qorshayaal waqtigaaga lagu isticmaalo laguna luminayo. markaa jadwalkaaga u diyaarso shaqooyin kuu jahaynaya mustaqbalka aad jeceshahay, kaana ilaalinaya dib u dhaca iyo waqti lumiska. waan soo gunaanadina nuxurka cutubkan waa caqabadahaas ugu badan maaweelada asxaab xumida iyo go'aan la'aanta oo loo wajaho sidii saxda ahayd.
nafta oo la qiimeeyo iyo firaaqa badan oo laga ilaaliyo iyadoo la adeegsanayo la degsanayo hawlo muhiim u ah nolosha ayaa xal u ah waxyaabahan soo sheegnay. markii nafta lagu mashquuliyo wax tan u ah iyadaanan waqti u heli doonin wax aan tan ku jirin. qofka muslimka wuxuu nabigu leeyahay salawaatu Allahi wasalaamu calayhi laba nicmo dadka inta badan dadka kamid ah waa ku kadsoomeen. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس بنقول عليه الصلاة والسلام الصحة والفراغ. لبا نعمة أدوى وين تدك أنت فربضان وإكو كتسومين ونعمة العافمات هي نعمة فراغ. أما نعمة الصحة ونعمة الفراغ نعمة العافمات النعمة الفراغ لغا يبا عافمات قف انتو هاي انتو إنو ندريمين أو مالك لكم مشغولو أو مركا وحانو استدريما قيمها عافمات مركا وقتي هي سنة marka waqti haystana uu dareemi waayo meel xun ku lumiyo marka xorriyada laga qaado ama xabsi oo kala ama dhibaato kala soo diristana oo qiimo waqtiga ogaado. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa. subscribe to like to share to xaqiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.